بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال meel walbood nagala socotaan ku soo dhawaada barnaamijkii dulmeerka wararka oo habeen walba xilligan oo kala aad kala socotaan wacaal media qodobadan caaweyn kugu haynana waxaa ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya oo garab ka helaya ciidamada AMISOM oo howlgal ay ka fuliyeen deegaano hoostaga degmada Maxaas ku soo qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab wasaaradda boostada isgaarsiinta dalka Soomaaliya oo war ka soo saartay weerar xarunta Hormuud loogu geystay deegaanka Jaldeys taasi oo ay geysteen ciidamada dalka Kenya dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka jawaabtay hadalka soo yeeray madaxweynaha Erdogan ee ahaa in dalka Turkiga laga codsaday in sahan shidaal ay ka sameeyaan badweynta Hindiya ee dalka Soomaaliya khilaafkii u dhaxeeyay madaxweynaha Hirshabeelle iyo gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka Hirshabeelle oo la soo afjaray gudoomiyaha guddiga doorashada Galmudug oo maanta la doortay ahlu sunna oo gaashaanka u doortay sheegtayna inaysan ka qayb gali doonin doorashadaasi dawladda dalka Kenya oo damaanad u diiday inay ku sii dayso laba nin oo Soomaali ah oo lagu eedeeyay in gabdho Soomaaliyeed ay u gacan geliyeen Magafe fanaanka qadarkeeyo oo maanta dib u helay xurriyadiisa kadib maalmo uu ku xirnaa caasimadda dalka Itoobiya ee Addis Ababa ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo kulamo la yeeshay safiirka dalka Turkiga iyo Qatar isagoo amray taliyayaasha ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya inay amniga xoojiyaan wararkeena arrimaha dibaddana waxaa ka mid ah Trump oo si degdeg ah u codsaday in loo laalo dambiga isaga lagu soo oogay iyo dacwad oogaha dalka Angola oo wacad ku maray in haweeneyda ugu taajirsan qaaradda Afrika uu dib ugu soo celin doono dalka Angola taasi oo loo haystay inay falal musuqmaasuq ah ka geysatay dalkaasi daawadayaal haddana ku soo dhawaada warkeennii oo faahfaahsan ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa howlgalka midowga Afrika ee Itoobiya ayaa howlgal ka sameeyay qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Maxaas howlgalkani ay ciidamada sameeyeen ayaa waxaa horkacay maamulka degmada Maxaas waxaana la sheegay in lagu soo qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab Cabdi Muumin Cilmi gudoomiyaha degmada Maxaas oo warbaahinta la hadlaya ayaa sheegay in howlgalkani uu salka ku hayo kadib cabasho ka timaaday sida uu hadalka u dhigay dadka degan deegaanadaasi howlgalkaasina lagu baacsanayay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab gudoomiyaha ayaa sheegay in meelaha qaar ay jireen isku dhac dhex maray ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab hase yeeshee ma uusan sheegin in dagaalkaasi uu ka dhashay wax khasaare iyo in kale wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta dawladda Soomaaliya ayaa cambaareysay weerarkii lagu qaaday xarunta shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud ee deegaanka Jaldeys degmada Afmadow ee gobolka Jubbada Hoose injineer Cabdishakuur Xasan wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta oo dhacdadaasi ka hadlayay ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo weerarada soo noqnoqday ee lala beegsanaya isgaarsiinta gobolada Jubbooyinka iyo Gado wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in weerarkani ugu dambeeyay uu waxyeello weyn u geystay dhismihii iyo agabkii xarunta shirkadda Hormuud ee deegaankaasi Jaldeys taasi oo saameyn ku yeelatay ganacsiga iyo nolosha shacabka deegaankaasi oo ku xiran degmada Afmadow weeraradaasi ayaa inta badan waxaa lagu tuhunsan yahay inay geystaan ciidamada dalka Kenya kuwaasi oo ka howlgala xuduudda u dhaxaysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya waxa ayna wasaaradda wacad ku martay inay la kaashan doonto wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya sidii looga qaadi lahaa tallaabooyin ku habboon kuwii dhibaatadaasi ka geystay goobahaasi ciidamada dalka Kenya ayaa burburinta xarumaha u adeegsaday miinooyin waaweyn iyagoo burburiyay taawaro iyo dhismayaal ay leeyihiin shirkadaha isgaarsiinta ee ka howlgala koonfurta dalka Soomaaliya agabyada ay burburiyeen ciidamada ayaa waxaa ka mid ah dhismayaal iyo sidoo kale gawaari iyo matooro ay lahaayeen shirkadahaasi waxaa hadda hawada ka maqan isgaarsiinta deegaanka Jaldeys iyo tuulooyinka hoos yimaada iyadoo uu hakad galay isticmaalkii adeegii EFC Plus iyo kuwa kale taasi oo dhibaato ku noqonaysa nolosha dadka ku dhaqan deegaanadaasi dadka deegaanadaasi ku dhaqan ayaa saxaafadda u xaqiijiyay in ciidamada dalka Kenya oo wata gawaarida dagaalka ay burburiyeen xarunta shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo ay ku lahayd deegaankaasi iyagoona baaq u diray dawladda Soomaaliya kana codsaday in arrinkaasi ay wax ka qabato ciidamada dalka Kenya ayaa sanadadii la soo dhaafay burburin sharci darro ah u geystay xarumaha shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala koonfurta dalka Soomaaliya sida lagu sheegay war saxaafadeed ee soo saartay shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud 12 xarumood oo ay leedahay shirkadda ayaa ay burburiyeen ciidamada dalka Kenya labadii sano ee la soo dhaafay waxaa ugu dambeyn la soo afjaray khilaaf muddo dheer soo jiitamay oo u dhaxeeyay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cusmaan Barre Maxamed
kulan magaalada muqdisho ku dhex maray madaxweynaha hirshabeelle ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka ayaa xal looga gaaray khilaafkii iyadoo arrintani uu garwadeen ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle cali maxamed guutaale. khilaafka madaxweynaha iyo guddoomiyaha ayaa salka ku hayay marar badan mooshin soo laablaabtay kaasi oo la sheegay inuu dabada ka riixayay guddoomiyaha. labadan mas-uul ayaa shir muddo uga socday magaalada muqdisho waxa ay ku go'aansadeen inay soo afjaraan khilaafkii u dhexeeyey iyadoo haatan ay xusid mudan tahay in guud ahaanba xilkoodii uu ka harsan yahay muddo 8 bilood ah taasi oo kadib la filaya in la qabto doorasho. kadib hadal shalay ka soo yeeray madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ku saabsanaa in madaxda dowladda Soomaaliya ay weydiisteen dalka Turkiga inay sameeyaan sahan shidaal ayay u egtahay in dowladda Soomaaliya ay haatan ka jawaabtay. inkastoo ay dowladda si toos ah u abaarin arrinta Erdogan ayaa haddana war lagu daabacay wakaaladda wararka ee Sona waxaa lagu sheegay in aanan weli la gaarin xilligii badda laga sahmin lahaa shidaal. wasiirka batroolka iyo macdanta dalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed ayaa sheegay in aanan la gaarin xilligii la gudagali lahaa howlaha sahminta shidaalka isla markaana ay weli qabyo yihiin qorshayaal loo baahnaa in la dhammaystiro sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Sona. wasiirka ayaa wakaaladda u sheegay in xiriir walaaltinimo iyo mid wada shaqayn ah uu ka dhexeeyo dowladda Soomaaliya iyo tan Turkiga welina aanan la gaarin xilligii la bilaabi lahaa howlgallada batroolka Soomaaliya iyadoo ay weli dhiman yihiin howlo muhiim u ahaa in la dhammaystiro. wasiirka ayaa sidoo kale ka dhawaajiyay in sahminta shidaalka ay ahaan doonto mid daahfuran aysan ahaan doonin mid si gooni ah shakhsi ama dowlad loo siiyo. waxay arrintani ku soo beegmaysaa xilli madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu shaaca ka qaaday in casuumaad rasmi ah ay ka heleen dowladda Soomaaliya taasi oo ku aadaneed in Turkiga uu sahan shidaal ka sameeyo badweynta Hindiya inta ay ka leedahay Soomaaliya. wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa telefishinka NTV ee dalka Turkiga ayaa ku soo waramaysa in madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay Turkiga ku casuuntay inay soo saarto shidaal ku jira badda Soomaaliya kadib markii xukuumadda Ankara ay heshiis la mid ah kaas oo dhanka badda ay la saxiixatay dalka Liibiya sanadkii la soo dhaafay. Erdogan ayaa mar uu magaalada Berlin ee dalka Jarmalka kula hadlayay wariyaasha waxa uu sheegay in Turkiga uu qaadi doono tallaabo la xiriirta casuumaadda ugu timid dalka Soomaaliya inkastoo aanu faahfaahin dheeraad ah ka bixinin. wuxuu intaasi raaciyay in arrintaasi ay muhiim u tahay dalka Turkiga tallaabo ku aadanna ay qaadi doonaan dhowaan. xubnaha guddiga doorashada madaxweynaha Galmudug ayaa maanta doortay guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda gobolka Galgaduud. kulankani ayaa waxaa goobjoog ahaa guddoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal iyo labadiisa ku-xigeen. guddoomiyaha guddiga doorashada madaxweynaha ayaa waxaa loo doortay Maxamed Xuseen Tahliil Caloolgeel halka ku-xigeenkiisana loo doortay Cabdiraxiin Axmed Cigaal. guddiga ayaa haatan wixii ka dambeeya waxaa looga fadhiyaa inay soo saaraan jadwalka doorashada iyadoo xilli yar ay ka hartay doorashada. dhanka kale hoggaanka sare ee ahlu sunna wal jamaaca ayaa ka hortimid arrimaha doorashada madaxweynaha ee Galmudug taasi oo ka socota magaalada Dhuusamareeb iyadoona arrimaha doorashada ay gacanta ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya. war-saxaafadeed ka soo baxay madaxa xukuumadda Galmudug Sheekh Maxamed Shaakir ayaa waxaa lagu cadeeyay in ahlu sunna aysan qayb ka ahayn doorashada Galmudug oo ay ku sheegeen in boob ay ku hayso dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale qoraalka ka soo baxay Sheekh Shaakir ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay afduubatay soo xulistii 69kii xildhibaan ee la rabay inay soo xulaan odayaasha dhaqanka waxaana arrintaasi uu xafiiska ku tilmaamay mid sharci darro ah. ugu dambeyn Sheekh Shaakir ayaa musharaxiinta iyo shacabka Galmudug ugu baaqay inay fiiro gaar u yeeshaan boobka la sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya ay ku hayso doorashada Galmudug isagoo sidoo kale cadeeyay ahlu sunna inaysan ka qayb gali doonin doorashada la filaya inay ka dhacdo Galmudug. ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta xafiiskiisa shir kula yeeshay safiirada Qatar iyo dalka Turkiga. shirkaasi ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay maamulaha shirkadda EZ iyo taliyayaasha ciidamada booliska iyo xoogga dalka Soomaaliya. kulanka ayaa intiisa badan looga hadlay dardargelinta mashruuca dhismaha wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye iyo sugidda amniga howlwadeennada ka shaqeynaya wadadaasi waxaana la isla gartay in al-shabaab aysan marna hor istaagi karin mashruuca dhisidda wadada isku xirta magaalada Muqdisho iyo Afgooye. ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa faray taliyayaasha ciidamada ee kulanka ka soo qayb galay inay la yimaadaan hannaan ku habboon ee lagu xaqiijinayo amniga si howlwadeennada ay u dhammaystiraan dhisidda wadada taasi oo muhiim u
waa isu socodka bulshada iyo horumarinta ganacsiga iyo sidoo kale kobcinta dhaqaalaha. Safiirada dalka Turkiga iyo Qatar ayaa ra'iisul wasaaraha ku bogaadiyay dadaalkiisa ku aadan badqabka howlwadeennada shaqada ku jira iyo ka miro dhalinta mashruuca wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. sanduuqa horumarinta ee Qatar ayaa maalgelinaya mashruuca dhismaha wadada isku xiraysa Muqdisho iyo Afgooye oo dhismaheeda ay fulinayso shirkadda NS ee laga leeyahay dalka Turkiga. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa shalay kulan gaar ah la qaatay maamulaha shirkadda NS Zagratin Aksan. Ra'iisul wasaaraha ayaa ballan qaaday in dowladda Soomaaliya ay mas'uuliyad buuxda iska saari doonto amniga howlwadeennada ka shaqaynaya dhismaha wadadaasi isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. wararka wacaal miidiya ka soo gaaraya dalka Itoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in xabsi ku yaala dalkaasi maanta laga sii daayay fanaanka qadarkeeyo oo maalmihii la soo dhaafay ku xirnaa halkaasi. mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in qadarkeeyo xorriyadiisii dib u helay isla markaana sii dayntiisa uu qayb weyn ka qaatay xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka dalka Soomaaliya. xildhibaan Cabdiqaadir Carabow iyo safaaradda Soomaaliya ee dalka Itoobiya ayaa gacan weyn ka geystay sii daynta fanaanka oo maalmihii la soo dhaafay ku xirnaa xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Itoobiya. fanaanka qadarkeeyo ayaa waxaa bishii Diseembar ee sanadkii tagay 2019 laga soo qabtay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Itoobiya xilli uu ka yimid deegaanada maamulka Somaliland. hay-adda dambi baarista ee dalka Kenya ayaa diiday in qaab damaanad ah lagu sii daayo 2 nin oo Soomaali ah kuwa oo lagu soo eedeeyay inay muqallisiin u ahaayeen haween loo qaaday dalka Liibiya kuwaasi oo halkaas ku xiran. ragga Soomaalida ayaa waxaa lagu soo eedeeyay in intii u dhaxaysay bishii November ee sanadkii tagay iyo bishaan aynu ku jirno ee Janaayo ay dad badan ka qaadeen dalka Kenya isla markaana ay u gacan geliyeen magafayaasha ka howlgala dalkaasi Liibiya. sidoo kale dambi baarayaasha ayaa sheegay in raggani Soomaalida ah lagu hayo cadeymo ku aadan in gabar ay ka qaadeen magaalada Nairobi taasi oo martay dalka Suudaan kadibna u dhaadhacday dalkaasi Liibiya halkaasi oo ay ugu gacan gashay magafayaasha ka howlgala dalka Liibiya. iyo codad ay soo bandhigeen dambi baarayaasha ayaa lagu sheegay in laga helay codad gabdho oo calaacalaya kuwaasi oo la sheegay inay gacanta ugu jiraan magafayaasha dalkaasi Liibiya. magacyada labadan ruux ee Soomaalida ah ayaa lagu kala sheegay Cabdiqaadir Axmed Maxamed iyo Maxamed Axmed Afrax iyagoona shalay la soo taagay maxkamad ku taala magaalada Nairobi ee dalka Kenya balse loo diiday in damaanad lagu sii daayo. halkaad warkaasi kala socotaan waa Wacaal Media. dacwad oogaha guud ee dalka Angola ayaa ballan qaaday inuu wada kasta oo suurtagal ah u mari doono sidii dalka dib loogu soo celin lahaa Isabel dos Santos kadib markii ay baaritaano ay sameeyeen warbaahinta lagu ogaaday laguna helay dukumiintiyo muujinaya sida ay haweeneydaasi Afrika ugu taajirsan ay hanti fara badan ugu dhacday dalkaasi xilligii uu aabeed xukumayay dalkaasi. dacwad oogaha ayaa yiri waxaan adeegsan doonaa wadooyinka suurtagalka ah iyo dadaalo caalami ah sidii aan dib ugu soo celin lahayn Isabel dos Santos waxaana taageero caalami ah weydiisanaynaa dalka boqortooyada UK, Dubai iyo dalal kale. dukumiintiyada la helay ayaa waxa ay muujinayeen sida qandaraasyo faa'iido badan oo dhul, batrool, diamond iyo dhanka isgaarsiintaba ay xukuumadda kaga heli jirtay haweeneydaasi. hase yeeshee Isabel dos Santos waxa ay beenisay inay wax ka jiraan gebi ahaanba eedeymaha loo haysto. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii maanta ahayd waxa uu diiday dacwadaha xilka xayuubinta ee ay ku soo rogeen dimuqraadiyiinta waxa uuna ku baaqay in Senatka si degdeg ah u laalo dacwadaasi. Senatka waa inuu diidaa qodobada xilka xayuubinta ah isla markaana si degdeg ah dambi ugu waayaan madaxweynaha ayaa lagu yiri qoraal ka koobnaa 116 bog oo ku saabsanaa maxkamadeynta madaxweynaha kaasi oo ka soo baxay aqalka cad. aqalka wakiilada ee ay hogaaminayaan dimuqraadiyiinta ayaa madaxweynaha ku soo oogay 2 dacwadood oo xilka xayuubin ah oo kala ah ku tagrifal awoodeed iyo is-hortaag uu ku sameeyay Koongareeska. dhinaca kale hogaamiyaha aqlabiyadda aqalka Senatka ee dalkaasi Mareykanka Mitch McConnell ayaa isniintii soo jeediyay xeerar si degdeg ah u soo gabagabayn doona maxkamadeynta xilka qaadista ee madaxweyne Donald Trump iyadoo aysan jirin wax damaanad ah oo loogu ogolaanayo cadeymo iyo markhaati furayaal cusub. qaraarka uu shaaca ka qaaday McConnell ayaa dacwad oogayaasha aqalka wakiilada ee dimuqraadiga ah iyo qareennada difaacaya madaxweyne Donald Trump siinaya 48 saacadood kiiba si ay u soo dhigaan doodahooda. qaraarkani oo codeyntiisa ay maanta socota ayaa waxaa sidoo kale ku jira in dimuqraadiga loo ogolaan doono inay isticmaalaan cadeymo ay ku maxkamadeynayaan madaxweynaha iyo in kale.
daawadayaal intaa waxaa inooga eg barnaamijkeennii dulmeerka wararka oo aad kala socoteen wacaal miidiya tani intaynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale ah waxaan inkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh